حاجة يوتيوبر كلا أو إذا كلا يكقرصون لكن سفرت كسو جرتينا فضلا اسكو داي مقالك إن دعوتك أو دميستريت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولي سلام مرة أصحابتي ذا قالي ملك سجوكتين سودوا جبران فضلا دعوتي سودوا هذا هورين جوكتين عادي هذا وما استعي سيدا قروح بدنا يقول حرتي هالمهم جانا كداول سواس جبران قفك إلا الله نقفك الماء واس جبراني جالس بسودوا مقال قلوا عصب رؤانتي تورط مقال جودة قليل أصحابتي يقصوا بيرتبريات دبوا على اللي سودوا هذا عادي هذا وما استعي سيدا قروح بدنا مركز سبسكرايب يقصوا عتين لا وعني ليه عادي هذا وما ستين كيورون جورو عليها ماي فاميلي عادي هذا ودكنا وما ستين ثانك يو سو ماتش انت كلا عصبنا سود وين جنان كين سود ولا إليه هاي جالس سود هذا مقال قالوا عصب مقال كان ومالين دونا إنه مقال حساب له هاي كل تبع وحياة بدل أكو جانسا ماليزيا أوكي فضلا اسكودي مقالك إن دعوتك أو دميستريت هدي أدور بحديد هراك دعوتك وهذا نخس سعوتك أدور فهمين معناها مركز ماذا فاهمين موضوعا ماشي وجديده وليها اما فائده الموضوع عليها اسكو داي مركز كيدا ان دميستid موضوعا ادي هذا ما استيك سو مقال كلا موضوعا ما تكلمنا wax kala ma ahan waxa waaye safaradan aadka u batay ee Malaysia loogu tagayo maxay tahay maxaa sababay Soomaalida dhamaan reer Malaysia inay safar wada ahaadaan oo ay maalin kasta 100 qof ay baxaan ahantii dadkana daawada inta badan iyagu waxay arkaan youtuberada markay baxayaan oo markaas iyaga youtube-kooda ay ka daawadaan youtube-kaas qofkaas baxay laakiin xaqiiqada waxa jirta in dad intaas ka badan ay maalin kasta ka baxaan Malaysia okay hadii aan galno xaaladda Malaysia ama nolosha Malaysia ama dal ahaan Malaysia horta xaalkiis waa sidee Soomaalida ku dhaqana qaabkee ayay ugu dhaqan yihiin maxay ka qabtaan maxay ugu nool yihiin sababaha ay wadankan ku hayaan iyo sababta u joogan maxay tahay taasna caawad ka bugan doonteen haddaan u soo laabto horta wadankan Malaysia waxa ku nool 34 milyan markaan dhahay 34 milyan waa muwaadiniinta Malaysiyaanka waxay u kala qaybsamaan saddex qowmiyadood qowmiyad waa Malay wadanka iska lahaa oo muslimiinta qowmiyad kalena waa Chinese oo gumeystiya keenay wadanka qowmiyad saddexaadna waa Hindi oo China waxa keenay gumeysti wadanka gumeysanay marka saddexdaas qowmiyadooda ku nool si waxay wada nool yihiin respect leh qof kasta ama qowmiyad kasta diin gooni u leedahay diinteeda waqtigeeda u dabaaldegtay ciidooda muslimiinta ciidda ay u dabaaldegaan kuwan laha Hindida gooni u dabaaldegaan taas waa wadanka Malaysia marka fursadaha aan Soomaaliya anaka aan ka helnay ama Soomaalida inta badan qaabkii u joogan wadankan Malaysia ama maxay Soomaalida u imaadaan wadankan Malaysia taas waa su'aasha saxda Malaysia Soomaalida imaadaan waxay u imaadaan saddex qaybood oo imaadaan qayb waxbarasho ku imaaday ha ahaato jaamacad ama ha ahaato college iyo jaamacad waa la kala qaadaa college waxa la dhahaa maad yaani qof baranayo luqadii jaamacadna waa qof jaamacad dhiganayo qof waxbarasho u imaaday qof caafimaad u imaaday iyo qof buufis u imaaday buufiska igi sheegay wax kale maahan waa Talyaani aan ku socon jiray leen Talyaani oo dardar leh ayaa inta ka socon jiray leenkiina uu istaagay hadda qambalo marka Soomaalida ku nool wadankan saddexdaas ay u imaadaan meeshan marka maxaa isbedelay maxaa keenay in Soomaalida badan ay markaas safar ka yihiin wadankan اسبوعي وها بحا ويران لaba diyaaradood oo Afrika soo aadaan qaasatan Ethiopia soo aadaan diyaaradahaas Ethiopia Airways waxa soo raaca ugu yaraan maalin kasta 100 qof oo Soomaaliya oo markaas u soo jeeda dalkii Soomaaliya maalin dhaweyto waxa xasuusiga maalin dhaweyto waxaan aaday saldhigga booliiska anigoo markaas qof wax soo dhameynaya sida qof raba inuu elboorka aado waa inuu soo qaato warqad uu wadada ku sii maro markaan sii soconay saldhigga aan tagnay markaan saldhiggii aan tagay askarigii oobiga qoraya ama askarigii meesha fadhiyay ayaa wuxuu dhahay maxaad doonaysaa oo laga caawiyaa markaasaan ku dhahay tigidhkan aan wataa waxaan rabaa inaan aado wadankayga hooyo markaasuu su'aasha koowaad uu weydiiyay waxay ahayd niyo maxaa kugu dhacay wadankan maxaad ku nacday maxaa ii ku dhacay dad Soomaali tihiin maxaa ii ka haleeyay wadanka miina ka helmiya
anigii ahaan waan dareemay dad badanna baxaan waan la socdaa waxaan ku dhahay run ahaantii dadka inta imaanayaan Malaysia qofba qorshe u imaadaan dhahay qofkas markuu qorshiisa dhameysto ayuu ka baxaa haddii aan u soo laabto بريان دمبي waxaan naga tagay dad nagu qaali ah dad walaalaheen ah dad aan waqti badan isla soo jabhadeynay dad badan isla soo shaqeynay oo markaas safar ahaa ama already baxay wadan ka tagay Soomaaliya tagay waxaan kamid ah walaalkay Yahya Hunter oo isaga wax badan isla soo shaqeynay oo wax badan isla soo joognay oo wax badan maartay Malaysia ku noolaa oo haddana ka laabtay Malaysia oo dhulkii hooyo ku laabtay waxaa kaloo kamid ah Axmed FJ the one and only oo isagana doraad baxshalayto baxay shalo baxay waxaa kaloo kamid ah walaalkay Liban Aadan Cali Liicaato oo isagana oo rabay inuu biris wax baxo laakiinse nasiib daro Ilaahay caafiyo laga helay cudurkii isagana waxaan ku leenahay baraad Ilaahay ku caafiyo isagana ujeedadiisu waxay safar inuu aado oo markaas safar ayuu u toobsheysnaa marka dad badan waxay isweydiinayaan maxaa Malaysia ku dhacay maxaa loo kala cararayaa xaqiiqda dhabta waxay tahay Malaysia qofba meeshan qorshe u imaaday qof iska imaaday ma lahan qofku markuu Soomaaliya soo baxayo waxa laga yaabaa inuu soo socdo Malaysia to Muqdisho ama Soomaaliya ka soo baxayo inuu 17 saacadood diyaar soo saarnaado ama uu ku imaado Malaysia waa dareemi kartaa masaafo dheer qofkaas soo jaray meeshan wuxuu imaaday qorshe oo markaas saga ka lahaa dadka badankood waxa laga yaabaa inaysan qorshihii inta u imaadeen aysan u suurtagelin markaas iyadana qofkii uu xawhamiyay inuu isaga laabto meeshii uu markaa qorshigu ka waayay muxuu ka sii qabanayaa talabaad 99% dadka inta ku nool Malaysia dad shaqaysan ma ahan waa dad markaas iyaga la taakulo dawladda laga soo dilo biilal marka qofkii inta bilaa macna yaani joogayo waa iska yarta qofka meesha qorshe u joogay qorshiis markii dhamaantana kolto uu ka socdaa marka ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan idin soo gudbiyo Malaysia hadda way xiran tahay lockdown lagu jiraa waxaan la furi doonaa Ilaahay baa waqtiga la furaayo laakiin sanadkan ma u maleynayo sababtoo ah xaalado badan ayaa markaas iyada ka socda marka waxa yaala waa wax iska yar qofka sana wuxuu ka dhameystay hawsha u imaaday programka u imaaday markaas iyada uu ka laabanaya dad badan waxay dhahayeen Malaysia maalinba qorshe cusub ay la imaadaan dad badan waxay isweydiinayaan Malaysia mar waxa ka socda mar waxa ka socda aroosyo mar waxa ka socda su'aalo la weydiinayo maanta waxa ka bilowday safar marka waa soo dhaweynayna ma sha Allah aad iyo aad maanta waxa ka bilowday safarta kaliya ma ahan youtuber kaliya inay safraan laakiin waxa safra ummadda Soomaaliyeed ee meesha ku nool sababtoo wadankan inta badan Soomaalidu way ka horimaado waxba kuma hayaan dhaqaale kuma hayaan nolol kuma hayaan waxba kuma hayaan shaqo ma leh marka qof iska joogayo oo bilaa ma yaad u joogayna horta ma jiro marka waxaan fili doonaa inaad ka diragteen nolosha Malaysia taala iyo dadkan maalinka soo baxayo oo boqolaal kun isugu jira talabaad waxa soo hartay dadka badan ee markaas iyaga baxayaan qof kasta qorshe u baxay qof iska baxay ma jiro qof kasta oo Malaysia ka tagaya meeshan wuxuu arkay inaysan qorshiis isugu jirin inaysan waxba u suurtageleynin markaas iyada qofkaas wuxuu aaday meeshii uu markaas dhahayo waxaad ka samaysan kartaa nolol kale oo kan qurux badan tan inta taal mid kale qurux badan ayaad ka samaysan kartaa marka meeshan waxa waay sidaas waay bariyahan dambana annakan waxa noo shidan waxa la yiraahdo safar insha Allah ta'ala waxa jira youtuber kale oo idin kale ka qarsoon laakiin safarta ku soo jirtay iyagana waxa jira youtuber kale oo idin kale ka qarsoon laakiin safarta ku soo jirtay iyagana oo safraya mar dhow waxaan arki doontiin inaad iyagana aad soo gudin doontiin insha Allah ta'ala inta soo go'oonaya muuqaal fadlan cusub